soo dhaw wala magacaaga gablo wala waan dhaw magacaaga noomuna munay wala waxaan doonayaa iga warantid qisadii kugu la yaab badnaada intaad wiil la haysaa ka soo martay wala la qisanku iska farbadinta muhiimka aan soo qaadanaya inaan baan isbaranay bari xalfad baan isku baranay inankii xalfad markaan isku baranay ayaaba wax dhacday waxaan ku wari habeenkii marka laba habeen wada hadlaynay ayaa habeenkii saddexaad ku wala waan tagaya buuramaan qabaneen wareegaya way biigu aan isku nimaadno aynu dasiita shana way baan ku waan isku nimi dadeenka markaan isku nimaado horta waan iska tagay buuramaan qabtay 9 bilood baan buurama ku maqnaa 9 bilood badee si fiican baa warshaksan daacad baan isku ahayn anoo 9 bilood jooga buurame ayuu habeenkii dambe la saaday wuxuu ugu dhahay waxaan doonaynaa ku soo doonaan ku guursado way baan ku wari burca kale biigu dhinta shanay way baan ku burca yimi burca markaa yimi ayaa biigu wari waxaan doonaynaa ku guursado waa sax baan ku wari wuxuu ugu wari waxaan doonaynaa kula tago dadka waxaan ku dhahay la tagine reerkayga si sharaf leh iga soo doon dadka wuxuu ugu wari madaxayo waxaan kugu soo doonto oo dhaqaalada mu haysan wiilko wasax baan ku wari ana bal wax soo farsameynay lacag baan ku keenay lacagta igu soo doona way biigu wari ana wallahi wiilka si dhaba xad dhaafaan u jeclaa wallahi xaqiiqatan oo de naftada dhow huriyay dadka way baan ku wari ana lacag ku keenay lacagta igu soo doona way biigu wari waan iska tagay xaafadda qabtay isla subaxiiba mobile iPhone aan haystay mobile iPhone ka haabaan qaaday waan soo iibiyay $800 baa laga siistay waxaan ku lacagta qaado oo igu soo doono way biigu wari wiilkii habeenkii halkii markaan ka iimaano ma haysta maarta molkii gooniga iibiyaba habeenkii bartaan kaga yimid aan isku ogaan soo doono ayaabaan waybayna ku meel ka baxayba 7 cishan sugay lambarkiisa lambarka la ka wacaa markii iga qabto codkayga garto ayuu ugu jaraa waan yaabay lacagta kama warwareeyay wajiga ka qaalisan isagii baan ka warwareeyaba kadib markaan mala 8 cisho maqnaa habeenkii 9aad ayaan hanbariyadiisa Facebook ku arkaano inaan Facebook ka galay soo markaa inaan kala guursaday inaan kala ugu mehersaday ba lacagtii aan siiyay anigu ku igu soo doona reerkayga ugu kaalay ayaabaan ku arkay Facebook hanbariyadiisa waan yaabay horta waan u hanbaliyay markii maskaxdayda uu ka bixi waayay inaan kala weydiiyo waxaan ku war maxaa jira wuxuu ugu inaan taas guursaday jawaan yaabay lacagta telefonkaaga aad ku gaday lacagtan moolkiga anigu ku iibiyay aan ku reerkayga iga soo doono adigu lacag ma haysid reerkayga igu kaalay oo dashir sarf lay soo doono ayaaba gabadh kale ku mehersadayba de maskaxdeedu ka bixi weyday anigu lacagta kama warwareen laakiin jacaylkiisii de isaga aanu qabay xad dhaafka ha iyo dhaawac inta leego ii geystay dambe wala duulka muuqaalkan daawanayo halkan xad fariin oo maranaysa wala horta de baraabashada uu isticmaalo wadayna dhalinyarada uu daawanaya marka waxaan leeyahay ma jeclaan inaan qisadii horta soo dhex martay aan ka sheekeeyay anu lacagteedii imika moodin inaan lacagteedii doonayay laakiin jacaylkaadi ugu abartadii gaga baxday ayaan baan wallahi adkeysan waayay de maxaan ku dhahay xanuunkiisii an la imika la daala dhacaya dhow wala magacaaga gablo wala magacaaga Muxtaar baa la dhahdaa Muxtaar waxa doonayna la walaagtay qisadii kugu la yaab badnaan inta haween la xasaawisay aad kala kulanto uu noo qisada walaalmadiga deesan markaan soo xasto marna waan naxa marna waan qoslaa marna waan marba si baan noqdaa joonadayda iskala bedbedeliye jooyadayda anna qisadaas horta waxay ahayd niyow horta kulli dumarku isku wajiyay badin saad aragtid xiriir hadda la sameeysan kulli wajiyay badan baad kala kulmaysa gabadh xiriir leh ama gabadh reer leh oo masuulo u badle ayaanu xiriir wada wadaagnay ka bacdi gabadh la qabo ka bacdi habeenada kamid ah ayaa kulankaygu wuxuu noqday guri waxay u tir guriga walaashay baale ama deese in family-gayga oo kale soo gurigan iyada ka xaqlaayeen intii iyada ka mulkiila ninkooduna waa iska qaadolo waa ragaas ka marxaladaysan kabadhadii waxa hayo habeenka xilliyada dambe soo hadlaa marka adu ma ogtiin gabadh la qabo ma ogi dooci dareentoona kama hayo balse laakiin de way sheekaysaa jacayl bay ugu aburto markaas dhaban jacayl hasa ahaatee adigu inantii habeenada kamid ah guriga iskaga ximina waqtigii aan de ka kala tagi jirnay guriga ayaa adigu sheekadii baan ugu daba dheeraatay ama xiriirkii ama de qosolkii iyo farxadii dhex martay deetana adigu waqti jaaniskii baan ugu dheeraaday adigu wax iska gaadhay xilliyo dambe dabadeetana albaabkii waa la soo garaacay inantii ila fadhiday ama farxadii ama de qosolkii wajigeeda ka muuqday inantii adigu way isbedesho gebgeb iyo alla wanankaygi iyo ay hadalaan meeshii ka filanayn baa yimi dabadeetana waxay u tiri adigu inantii si aan ku qariyo ama si aan ku badbaadiyaba waan ku badbaadinaya qolkii fadhigay geyso marakana ayari saa si foor soo marakana aad waxa ku jira ina yaro ay dhashay oo ninkan aabooyay dabadeetana way marakanaacadii bay qaaday inaan keeraabay ka qaaday inaan keeraabay qolkii soo dhigtay marakanaacadii bay saartay anigi ana hoosta ka galay dabadeetana ninkii guriga lahaa guriga soo galo markuu soo meedhay buu inaan keerameeyo qolka fadhigu hurdaado wuu soo socday ana markaa waan gariiraya marakanaacadu soo aabadii oo aabbayiri buu arkay de qofka weyn mugiye miisaan kala gar kale meesha soo dhaafadhi ninkuu soogay gabigiisba juuqiyo jaaqiyo farna wada qaajin karba intuu soogsanaa baan carray albaabkii markaan ka boodo gabadhiiga sii furtay markii hore laba mishin waxa la dhisir haween laga masal gaaro balse laakiin way ka qornay deenu arko xaajiku
adigu waan ka cararo ilaahay way iga badbaadiyay isaguna way soo daba cararay kulli isagoo daba ordiyay igu wardambeysay in meeshu igaga hadhayna ma xasuusto intaas ayadu qisaday waayna sheekadii guri bay nacsiiseen oo ku xibay imika gidaarkaas aan kaga kalsoonay fiilada weyn ee inaan igu tiraado igu kaala magacaygu maxamed jaacno kana magac dheer Abaan Xikmad Abaan Xikmad waxaan ku weydiinayaa qisadii kugu la yaab badnayd inta haweenlaha saawisay ka soo martaa horta wallahi qiso sidaas sameeyeen laakiin qiso xanuun badan ugu dhalisay bay ahayd waxaan ahayd qiso kidiisa alaanadana qofkii aan qisada aanu qaaday ma garanayo cidiyahay markaana ma garanayn ismana lahayn taasoo kala ku dhacaysa waxa dhacday anoo waxa jacaylka la dhaho aan qadarin xushmayn aqoon wuxuu yahay ayaan maalmaha kamida 2018 bishii 8aad ayaan magaalada la dhaho Qoryaale cidi garanaysa ayaan gaari duhur iyadoo wada ku barwaaqay yahay ayaan damacayna burco aado wadada laamiga ayaan soo lugayay marka waxaan biriishka Qoryaale gaari baa igu soo maray basa gaarigii waan joojiyay gaarigii waan soo raacay soo qaaday gaariga dhixdiisa waxaan isku soo baranay marka inaan reer Puntland oo ka timi magaalada Garowe inaan tooxay inaan furfuran magaceedu waxay igu sheegtay nimco markaas inantii sidii ay ihaasaawii iyo sheekadeedii macaana iyo qosolka igu qoslisay aan soo islaawo waxaan xasuustay gaariga controlka burco taagan baan xasuustay ma ku hanbaabare intii waxaan soo gaadhu dhaqaaqay tanaynaantii baan walaal nambarkaaga ii sheego tanaynaantii iyadu hore waxay igu soo sheegtay inay balaaso ku dageyso nambar barakaad ay qortay markaan nasamteeshan aad ugu hadli jiray nambarkii barakaad ay qortay inantii anoo ka caaraysan gaariga balaasin inantii balaasin iga degtay gurigii baan tagay anoo inantii ka fikirayay ayaan seexda waxaan ku riyooday anigu inantii iskuursanay nolol wanaagsan wada yeelanay isla doorkiiba casarkii waan baraarugay waan booday wixii aan ku riyoonayay way nambarkeedina waan waayay tabtii baan inaan doo jeclaanay ana dama hayo ilama soo xidhiidhin war dambe kama hayo daana nambar igama qoraan marka inantii qisadii igu dhacday waxaan ka sameeyay maanso la dhaho baadi doon jacayl marka waxay ku bilaabaysaa maanso sidatan bini aadam koodhami bulshada inteed badan jacayl ay sheegeen boodhari inuu dilay qays beerka kaga dhacay leelana bogeed digay ayaan been ka dhigayo balaf baanu haysto runta barashadeeday bal iga hor joogtay soo bari dhaweydoon Qoryaalo barwaaqa inta roobku biyo dhigay biyo darafka joogan tooguna burqanayaan baliyadu u buuxaan iyo wali baraagu dhulka baadku jiifo ubax midaba badan leh dhirta baarka kaga yaal oo bulshada ku nool iyo beelaha halka dega kii boqor riyaal iyo kay laba irmaan tahay burcad ay ku dhaashtaan oo sida biyaha ceel balada shacaanaha lagu qabo banaanada warsoo bishii hore duurmaan boqolna burcaasman marka biyo ceelka lagu miceliyo ceelka waa la iska saydhiya burco aasmaan oran buundada kolkaan imi dhanka bariye laamiga guux baa baxayo aan bidaaminayay bas caado weeye soo iguma soo bixin oo barjoogsamaan oran oo bareega muu qaban oo balfuuli ma oran bismillaah intaan dhib baabacad iyo faraha hore baabuurki saaro deymada balaasho baarbaaray booskiyo kursiga maldegila bilan yaro qurxoon oo cambuhu bislaadiyo genyadii barooqiyo baal gore la moodaan baasheeda tagayo bariidiya salaan iyo kaftankii badnaa iyo barashada dabadeed bilantii isfahan oo tiro bashasho bashaalka sheekada hadba baalo rogaysa wana kuula inaan timarkii waan isfahan kowdhe deetana waxaan baraarugayaa anagoo controlka marayna controlkii burco baabuurku maraya haasaw bargoaya ana hadaan baraarugay iyana balaasay ku dagaysa hal birqsi dabadeed hadal baan ku boobo bilanay walaalay bal telefoonkaaga ii sheeg balami macaanay barteebeen ku kulana may booqinayeen bilantii waxay tiri bal moolkaaga ii dhiib barakaad bay geliso balaasaan maray marka intii nambarkii barakaad ay qoraysay gaadhi waxaan wadayno aniga la xintamaayo ay markii balaasa soo gaaray deetana bilantii waxay tiri iyadoo inankii gaadhiga la hadlaysa bartan baan ku dagayaa balbareega ii qabo anna bay igu tiri boqorkii uu maani qorin bureeqadan qalbigayga bilatay bacda casar baan baaray moolkay bilantii ka waayo baadidoonka caashaqa waxaan ahay basteeyo waxaan ahay bukaan socod baadhaya ruux maqan baafinaya bilanta igu beertay lahashada bal hadoo bulshooy bini aadamow jacayl waa below uu baacsado uu beerlole inuu jiro jacayl hadda waan bartay badbaadiyo waxaan kaga bogsaday soo bandhiga marka inantii waxaan leeyahay walaalay inantii reer Garowe haddii askarinaysid walaal nimco oo aad muuqaalkaas ku soo gaaro nambarkayga soo qabo walaal sidii baan ku doonayaa maalinkii gaadhiga ila soo xidhiid